إني تذكرت والذكر مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. السلام عليكم. kusoo dhawaada mawduucana maanta aynu kaga hadlayno ka qoslinta dadka waxa loo yaqaano laugh factory. adduunka waxaa ka jira dad badan oo ku shaqaysta ama mihnad ka dhigtay in ay dadka ka qosliyaan. dhalashada rabaan ha haystaan dadkaas waana mihnad ku soo badatay adduunka in qofku isku tilmaamo shactiroole iyo comedian kadibna uu ku hadlo wax kasta oo markaa uu dadkan kaga qoslinayo. hadafka kaliya uu leeyahay qofkani ama dadkani waxay tahay inay ka qosliyaan dadka markaa hortaagan dadka markaa maqlaya. All right, ladies and gentlemen, give it up for your next comic of the night, Fred Needleman. Hey, all right, folks. Who's ready for some comedy? Oh no, but seriously, who's ready for this Y2K bug? haddaba inaga Soomaali ahaan ka muslim ahaan arintu markay halka marayso maxayna la gudboon. nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix wuxuu leeyahay hoog ha u sugnaado mid ka sheekeynaya oo kadibna been sheegaya si uu dadka uga qosliyo. hoog ha u sugnaado waa xadiis saxiix ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo arintaas kaga hadlayo qofka sheekeynaya qofka hadlaya si uu dadka uga qosliyo markaasna been sheegaya. yani ka qoslintan baa waxay ku xambaaraysaa qofkan in uu been xitaa uu sheego xitaa run uu kaga qosliyo uu waayo been bay la galaysaa. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hoog ha u sugnaado mid ka sheekeynaya ee been sheegaya. hoog ha u sugnaado lama diidana kaftanka lama diidana in dadku ay markaa kaftamaan oo diinteenu ma aha diin waji macbuus diin xilxilnaana diin bila qosla ma aha. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiis ibn umar sayaa bisba raali allah ka noqde nabi wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waan kaftamaa wax aan xaq ahayna ma dhaho. waan kaftamaa waxaan xaq ahayna ma oranayo ama ma dhahayo. haddaba qofku inuu been ku kaftamo ama uu been sheego asagoo markaa dhahayo waan kaftamayay ama dadkan aan ka qoslinayay ama sidaan igama ahayn iyo dhabiga ma ahayn kaliya uun shactira iga ahayd arin fiican ma aha diinahan iyo dhaqan ahaan midna uma fiicna. iminkana waxaa jira dad badan oo beejaj iyo munaasabaad u qabsadaba inay dadkan ka qosliyaan. marka ay ka qoslinayaan muhiim ma aha in wax jira oo xaqiiqo ah ay uga qosliyaan wax aan jirin iyo waxay rabaan bay soo qabanayaan. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxaan kafiil uga ahay oo damaanad uga ahay ee guri ku yaala dhexbartamaha jannada waa qofkii beenta ka taga wa in kaana maazixan hadduu rabo ha ahaado qofkaasi qof kaftamaya. kaftanna allah ka dhigay beenta inaad ka fogaato waa arrin muhiim ah. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay waxaan damiin uga ahay oo kafiil uga ahay qofkaas guri ku yaala bartamaha jannada waa qofka beenta ka taga xitaa haddii uu kaftamayo. وإن كان محقا شلون لو كان مخطئا وببيت في وسط الجنة. هذا أجمل الآن لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بعض الناس حتى في غير المزح والعياذ بالله متعود على الكذب يكتب عند الله كذابا. تبي بيت في وسط الجنة ما أجمل البيت هذا. اترك الكذب في كل أحوالك حتى لو كنت مازحا. إننا waxaa dhacaysa oo arkaysa dad badan oo beejaj u furanaya oo filimo ama riwaayado dad kale ay dhigeen ku tarjumaya si been ah. qofkani luqad kale ama ha noqoto carabi ama ingiliish ama luqada afrika meel kale looga hadlo film aha ama comedian aha dad kale sameeyeen buu soo qaadaya wuxuu saarayaa af Soomaali shactira ah oo wixii dhabta ahay dadka filinkan ay ka dhigeen ka duwan. hadafkiisu waa maxay marka qofkan kaliya waa inuu beejka ku camirto kaliya waa inuu arintan oo dad shactira iyo fan ay u arkaan laakiin xaqiiqada filinkan dadkii sameeyay iyo qofkan tarjumaya waxaan uu kaga hadlayo wax isleh iyo wax isku dhow midna ma aha. marka nasal allah salaama inaad dadka ka qosliso oo istiraha dadka ka qosli oo been u sheegto arintaas waa arin halisa dhammaanteen aynu ka fogaano. dadka beejaj u samaysanaya dadka been ku tarjumaya waxyaabo xaqiiqada ka fog kaliya hadafkooduna uu yahay bal dadkan ka qosli bal dadkan shacbiyad ku yeelo bal dadkan like iyo follow iyo subscribe ku saaraan arin fiican maaha inaad cirdigaaga iyo sharaftaada iyo diintaada iyo akhlaaqdaada iyo aakhiradaada aad ku gadato shacbiyad aad heshay iyo dad badan ku soo raacay
maalinka qiyaamaha ama miisaankaaga marka la marayo qosolkii iyo shactiradii iyo laygtii badnayd waxay kaaga taraysaa malaha miisaankaaga xasanaadka waa haddii aadan dee markii horeba wanaag iyo waddo xalaala aadan u marin intaas ayuu ku egyahay mawduuceena maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh